bal waxaa iiga sheekaysaa macalin cabdiraxmaanow horyaaladii horta dalka ka jiray noocyadoodii sidii kala hayeen kooxii ugu caansanaa ama ugu magac dheeraa kooxihii maaragtay oo championska ahaa horyaalada ahaa oo koobabka ugu badan qaaday taasi waa qayb waxaan kaloo rabaa kadib marka inay igu dartid horyaalada Yurub oo kala duwan Ingiriis haday tahay hadii Spain tahay hadii tahay maaragtay Talyaani kuwii aad dalka looga daawan jiray iyo kooxihii ugu caansanaa oo horyaaladaasi oo dalka laga taageeri jiray dadka adiga iyo kulafaca waagaas ay taageeri jireen iyo markii adiga garaadsanaysay ciyaaryahanada xidigaha ahaa hadii yihiin Soomaali iyo hadii yihiin ajaanib intii aniga aan ku soo garaadsaday banooniga ama kubadda cagta Soomaaliya 10 naadi ka ciyaari jiray waxa la yiraahdo heerka koobaad ama Serie A Serie A Soomaaliya taageernimada markaan meel iska dhigan horseed ah waligeena waa ilaa taageero weyn oo dambaan noqday horseed caawiye maalin aldhiijay ergaa ilaa hadda horseed hadda inay jirto mar dhow ogaanaaba wali dheesho maal dhow mar reeyay munishibi la ciyaaray jamcad weyn marka waxaan moodayaa horseed inay hadda dheelin oraahda siirta oo taageero caawiye maalin sida naloo sheegay nin curyaan ah oo ku socon jiray wheelchair kursiga lugaha leh oo ninkaasna waa arkay ficlan wuxuu fariisi jiray kafeena Soomaaliya hoostiis mardamo nin weyn oo arkay naadiga kursiga maadaama uusan jaranjarada isbartibada fuuli karin waxa la sameyn jiray tunnelka oo soo ciyaartoyda ka soo baxdo irido hoose laga soo geli jiray mar walba ma korsad ciyaarayso kursiga oo bankiinada ama kaydka geeskiis oo fadhi jira gaarigu uu qornaa jiray markuu xasuusto aniga caawiye maalin horseed macnaha kulliga una maalintii ka kooban habeen iyo maalin inta horseed ahay marka mar walba waa meesha Talyaaniga Juve sempre sarà ana Juventus aan taageera xagga ku tagi doonaa daa'iman Juventus ahay macnaha waligeed tiyo kala horseed marka taageernimada markaan gees ka dhigo horseed inta aniga aqal soo yeeshay champion wadanka ayada ama raadiyaan ka dhigeysanay ama sanadii ugu dambeeyay arkay 7 iyo soo bilaw iyo 6 qiyaasa 74 saasina ahayd 74 isbartii ma geli jirin laakiin waa yaray hadii 8 dhammaadkii 9 kan bilaabay isbartiibo inaan galo shantaas sano isku xigto hal mar oo minishibi qaaday aan jeclaa inay ka soo dhaxgashay sajiniya ma hubo laakiin 4 sano horta horseeda champion ahayd 80 ay horseedana ka dhigatay marka banoonigeedii laanahu ciyaartoy asaasi u ahayd horseed oo xidiga ku tagi doona ma sheekeynayno ayaa ka aaday khaliijka waxa kamid ah Maxamed Ismaaciil Ali sitay aldhiijay sitay manocto sitay garabku ka dhigi jiray numero 11 baalka kale waxa ka ciyaari jiray Xasan Xafiif faraska aldhiijay asagana horseedkaas soo gaaray nimankaas adiga hal sano amalan soo gaaray banoonigooda naadiyada kale waxa kamid ah oo fiican oo championka ah horseed la xifaaltama Genio LLDP waxa kamid ah naadigii liijay dawladda hoose minishibi baldi lagu kaftanka xagiisa ma kalaado xifaalaha baldi marka waxa kamid ah naadi 80nadii la aasaasay bilowgoodii oo wagad la dhigi jiray oo isla markaan wagad calaamad muuqatay ku reebtay banooniga iyadoo asaaskeeda dhow yahay afar hoyaal qaatay wagad waliba ka horseedaan markaan u hadlo teamkan ka cabsano waa wagad waa naga badis badneed waxa la jiray wagad horseed waa ka burji badan tahay teamamka fiican waxa kamid ahaa inkastoo hal hoyaal qaaday teamka madbacadda oo mar dambe oo burburkii u dhow waxaan u maleynayaa 80nadii dhamaadkoodii waxa laga dhigay madbacadda bangiyada iyo caymiska marka soo gaabay xalay MBC aloo baxshay team fiican oo ahaa teamamka waxa kamid ah fiican Genio waa sheegay
horseed minishibiyo ama dowladda hoose markii dambe muqdisho laga bixiyey oo nin la jira xasan abshir allah yarxamo oo gobornatoore ka noqday xamar ayaa la heshiiyey macallin la jira Charles Comey CK la jira oo Ganes oo qaranka loo keenay tiimka marka dowladda hoose ninkaasaa dhisay muqdisho laga bixiyey horyaalada xitaa qaadeen 89 tiim aad u banooni fiican jiray oo la jira Batroolka nasiib darro ma qaadin horyaal laakiin ciyaartoy muuqato Mukhtaar Maxamed Maxamuud la jira Mukhtaar Cubti hadda xamar uu yimid la yiraahdo jooga oo soo noqday ka mid ah aad laacib oo banooniga xirfad badnaa oo banooniga aad u xaragooda kubadda oo adana tabaryaradiisa marka la soo fiirshay banooniga soo yaqaano horseeda ugu horyaal badneed Jenya ku xigtay Yogad muqdisho laga horyaal haysatay badda horyaal qaaday inaadi badda la jiray hadda mar dekada in la amarinaad magaceen laga bedelay bortiri qaranka weynaa u gali jiray Xasan Sheekh Aweys George inuu xanuunsan yahay la sheegay caafimaad siiyo marka tiimamka saasay ahaayeen isbartibadu waxay ahayd Stadio Conis waa Cabdicaziz u taala Stadio Conis ogaantayda 83 la xiray maadaama duqna ay ahayd qaybta tarabuunka la yiraahdo hooskaana maalin xoogaa leexleexday inta dad badan galeen marka waa laga joojiyay banoonigii dhammaan waxa loo wareejiyay Stadio Muqdisho ana og dhismihiisa todobaad la dhisay ciyaartu wareysay China iyo Soomaaliya oo dhistay ma ahayn garoon kubad caqaliya macnaha waxa la jiray tuulada sportiga hay curyaaminta ka bilaabo ilaa warshada maacunta sportiga ahayd kubadda cagta kubadda kolayga tii volleyga tii dabaasha hotel caalami oo xilligaas macnaha hotelada jiro two star 3 wuxuu yaqaan oo hotelka sportiga garoomada caalamiintada ama tababarka tenniski tuulo isku xiran oo sporti aad u qurux badan marka sportiga Stadio Muqdisho waxa lagu ciyaari jiray ciyaaraha qaranka iyo ciyaaraha waaweyn iyo finaalada iyo Ramadaanta oo nalka loo daaro marka halkaas la daaray magaalada qurux kale ay noqonaysaa ciyaartoyda inta aan ku soo garaadsaday ragga aadka u muuqda maalgoodan Facebook ku qorayay qarankii ugu dambeeyay qaran macna leh 1984 oo Kenya la ciyaaray xidigii aan ku soo gaaray horseed oo kale waxa kamid ah Portieri la jiray Bioley waxa bedelay la jiray Xasan Xamaama goolhaynimada Jahur difaacadeena waxa kamid ah Cabdikuus soo gaarin shaashan soo gaaray kabtan Ibrahim Ahmed Ali kabtanka horseed ahna kabtanka xulka qaranka waxaan soo gaaray Saciid Xuseen Faarax Saciid Ceyro la jiray oo baalka ciyaari jiray horseed dhexdeedii waa soo gaaray Nuur Cabdi Xaaji Allah yarxamo Sharkay waxaan soo gaaray dadka forwardka ahaa Umar Gadan la jiray Maxamed Ismaaciil Yafiif ciyaar yaraan daawaday kadib qaliiskii adar ay aadeen banu aadeen horseed Axmed Yaraa jiray tiimamka kale dadkan soo gaaray waxa kamid ah Shiqaalo oo Bruno Ksibahay Minishibiyo Ben Shakir waxyaaran ka soo gaaray waxaan soo gaaray Minishibiyo dambe oo Muqdisho dad xidiga xaqiiqatan hal mar soo bakay Abdi Boy hadeen Umar Cali Suuraag hadeen Kamaal Balaqo hadeen Ishaaqay hadeen dad saas Jenya oo kale waxaan soo gaaray Ditork Ditork la jiray banooniga Yusuf Maxamed Maxamuud Yusuf Shaqaaq waxaan soo gaaray Maxamed Xaaji Uurey ninka la jiray waxaan soo gaaray Trumbo oo hore uga ciyaari jiray waxaan soo gaaray Nuur Maxamed Nuur Qalooco iyo walaalkiis Baazi oo difaac ahaa walow ay isteetanada dhexdooda ka tageen ciyaaraha madbacada kan soo gaaray waxa kamid ah oo xidiga ahaa Muriidi Abati Abanuur Abdullahi Maxamuud Sarxaan Eeno oo ciyaarta hadaan ku sheegayo 84kii in goolka Soomaaliya u dhaliyay finalkii final maana ciyaartii kontra Kenya aan la ciyaarnay waqado kale Cali Mira aan waxa aan ahaa ninka la jiray Xasan Maxamed Abuukar Xasan Yare waxa aan ahaa Xasan Neero nin la jiray macallimiintii caanka ahayd oo aniga soo gaaray Garaar kamid ah waxa kamid ah Axmed Neegar kamid ah Budistan soo gaaray waxaan soo gaaray Umar Anjasti way iga horeeyeen waa taariikh lagu maqlay inta aanan u gudbin qaybta ajaanibta ma jirta ama ma xusuustaa ciyaar caalami ah oo qaranka Soomaaliya iyo koox kale oo ajnabi ah oo heer caalami ah
استاذ المدش يقول وكقيم كشيء ممكن جوجي ده ما خصوصته العيار اوكي waa jiraan waa sax ciyaar oo heer kooxna waa jirtaa naadi مثلا horseed oo kale ama jeni oo kale ama bacda ama even waxaan ay la ciyaartay koox kale oo مثلا inta badan Afrikaan anaga tartanana leelno waxa jiray tartanka bariga iyo bartamaha Afrika iyo mar ciyaaraha kaaf aan dheerijin مثلا waxa jira meeshan Champions League Europe laga ciyaaro Champions Africa jiro kooxda horyaalka noo ah way dheeri jirtay ka geli jirtay waxyaabaha marka xasuusto waxa kamid ah mooga inay sharci ahayd inay sharci darro ahayd horseed oo kale markii ay horyaalada Afrika qayb galayso ama horyaalada bariga iyo bartamaha Afrika ciyaartoy kale ay amahan jirtay wax xasuusta laacibiin kale oo qaran ku jiro oo tiimam kale u dheelo maaliyada horseed inta gashtaan ay ku dheeli jireen marka waa jirtaa horseed oo kale waxaan xasuustaa ciyaaray la ciyaartay muqaawiluun al-arab oo ah Masar toddoba horseed lagu soo dhuftay ciyaartii oo Forecasa ciyaartii oo Masar awayga waxaa loo aaneynayay nin ka mid ah ciyaartoyda horseed ah waxaa lagu qabtaa liir daroogo John Fakri al rijal Allah naxariis difaaca waaye waa la xiray niyo jab baa ku dhacay ciyaartoydii toddoba gool markaas nin weyn waxa iskoolka carabtan dhiganay waxa xasuustaa macallin dhigi jiray Maxamed Cabdi Rauf oo Masri oo xisaabtan oo dhigi jiray wuxuu noo qoray المقاولون 7 المخدرات 0 oo noo qoray tiimkii taa horseed wuxuu u baxshay tiimka muqaadaraadka iska jamaa marka ciyaartii oo dambe oo lugti labaad horseed labi ay ku badisay waxa xasuustaa waxaan kaloo anoo yar xasuustaa al-ahli oo Masar oo istaadi koon isku ciyaartay horseed markaas sportivo waa liigay ama yara sheekay u badnaa laakiin dadkii waxba ka xasuustaa tan hal ay ku dhamaatay xafiifa liigolka ayagana waxa uu dhalin jiray Maxamuud al-Khatiib oo nin xidig weyn oo Masar ahaa madbacada kale wax xasuustaa ciyaari la dheeshay waxaan qiyaasaa Gor Mahia oo Kenya iyo Jeniyo kale wax xasuustaa waxa loo kale wax xasuustaa Red Arrows koox la jiray la dheeshay madbacada waa kaasoo kale dhaafay waxay la dheeshay Red Devils oo Zambia ah qaranka asna waa ogahay ciyaaro badan oo dheelo oo tiyada ugu dambaysan ku sheegay oo Kenya waxaan xasuustaa kale ciyaarihii Carabta oo 79 oo qarankeena oo kaalinta labaad galay oo Ciraaq ay naga qaaday kaalshada kubadda cagta waxaan xasuustaa Tunisia kooxa ciyaaro kamid xamar istaag mushoo u dheelo maya ciyaaraha Carabta Soomaaliya marti gelisay dhammaan ba noocyada kala duwan ee ciyaaraha Carabta Tunis Portugal lagu dheelay kubadda cagtan kaalinta labaad aan ka galnay marka ciyaarahaas qarankana waa jireen tiimamka horyaalka noocan waa jireen intaba waa ka qayb galeen waana xasuustaa Europe aadna marka okay Europe ma laba marxalad aan u qaybinaa marka marxaladii hore oo soo yaraanteedii iyo barbaarkii iyo garaasashadii banooniga la fiirsado wuxuu ahaa Serie A Talyaaniga banooni kale oo xamar laga fiirsan jiray ma jirin banooniga live loo fiirsanayna ma jirin isheena aan kala socono banooniga waxay ahayd laba ilood barnaamijka ciyaaraha oo raadi musho laga sii daayo oo la sugo 7 saac soo gala iyo cajalada banooniga marka la dheelo oo diyaaradda Italia ay keento oo hal shaneemo macallin jaamac oo iskoolkii macallin jaamac ee guriga hooyooyinka wataqaana laga daawado oo aad la isugu dilo waliba dhowr habeen la dhigay cajaladaas marka banoonigaas Talyaaniga waxa wax la fiirsan jiray ciyaartaasi meeqa maalin ka hor aan dheeray inta badan hadaanan aanan qaldin oo xusuusta ay qiyaanin banooniga xadda leeyahay inta badan ay sabdiga adii isniinta waa la keenay jiray diyaaradu imaan jirtay waqti dheer maaha waxa laga yaabaa waliba xitaa barnaamijka ciyaaraha idoon laga sii dayn oo in ciyaarta horta la maqlay hadana BBC sidoo kale xitaa barnaamij sport markaas ma qabin waqtigeedana waa yaraa inta yarna waxay sheegi jirtay waxa siyaasadda iyo warar iyo ku saabsan marka tiimamkii la daawan jiray kulli aniga ogaalkayga inta waa Talyaaniga aniga Juventus aan taageeray ilaa hadda register ama hay hadda
register ahay baa taageerayaasha Juventus oo sajilin aan ku jiraa way soo diraan baxtaa ciid dhalashadayda hambaliya ay soo diraan marka waxaan xasuustaa banooniga Talyaaniga banooniga oo adduunka rasmiyan waxaan ugu bilaabay 82 daawashadiis ama la socodkiis mondiyaalaha wax xasuustaa oo Isbaaniya lagu qabtay ama Spain Talyaaniga qaado koobka xidigihii marka ogtay doona oo horyaalkaas mondiyaalahaas qaaday koobkaas adduunka Juventus u badnaayeen 12 kan oo xataa garoonka gashay ciyaartii finalka oo Jarmalka laga badiyay waxa xasuustaa tiirarka qaranka Talyaaniga uu ku taagan yahay waxay ahaayeen Juventus kasoo bilaabo Borteriga Dinozov oo kabtanka ah 40 sano jiray difaacida Antonio Caprini Giuseppe Nicolini jiray Gitano Shreya waa dhintay shil baabuur ku dhintay Poland 89 waxa xasuustaa dhaxda uu ciyaarayay Nicolini jiray Marco Tardelli isna Juve bundada hore ama number 9 uu ciyaarayay Paolo Rossi ayaan dhowdo Coroni oo ku dhintay tiimam kale waaweyn jiray Talyaaniga oo Juve la xafiltama waa labada naadi oo ka dhisan Milan AC Milano iyo Internazionale Milano tiimam kale jiray Genoa jirtay godka naarta la jiray aad looga boqo Sampdoria jirtay labada tiim oo caasimadda gobolka Lazio la yiraahdo Roma iyo Lazio marka tiimamka Talyaaniga banooniga oo la xiiseeyo wuxuu ahaa banoonigaas Talyaaniga واجرين راضي إن لقريق سجري برشلونة مثلاً كلاسيكا أو دون كوكلات برشلونة ريال مدريد تيمم كلو لكن وحي سقاشن كده بيكوبدي لما أنت وحي أورست إنجليز ميبي أنا يعني حوق كلو إنجليز ولذلك بحرك جيل كعطى قصد أو رنيرة حتى ربحنت بنونجا لما هو واقف إنجليز كي بحا يكون هاي المهد شو نكبورتيري عندهني فريكي قال بنوزيون عندهني حتى برونزيشن كانوا غلطانين بلوسيوني عندها بنوزيوني مرض ما أسعد الوانا ريغوري فوري جوكو بينالتي على فوري جوكو أوفسايد كا فور هذا اللي هو رميس صار يجري برونو جول كيكا وبورتيري وضربينايو أفتلانية جيل كدنبه وإنجليز سبتو برونو إيطاليانيga meesha uu ka baxay kubadda Ingiriiska korsoon noqotay Spain badan ma dhacdo wankeeda soo jirta ama tuu marka Bruno la xiiseeyay Talyaanigu ahaa tiimamkana kuwaas ay ahaayeen geero waxa waaye baba laga cabsi jiray laakiin waa daruuri galaas caana in la cabo maalintii ama adii qadada cab ama cashada cab adoo qof weyn caana looda wali amar waa waday jardinooyin kan ku sheegay iyo hadii library la gaaray iyo asla tagaysan waa soo celinay waxa la cabi jiray sharbeet wax la yiraahdo marka shukaansigaas inta badan wuxuu ku dhici jiray guryaha waxa kamid ah waxa xasuusto caanaha asaasi ah yar iyo weyn wala cabay hadda ma